harkiisa lagu nastaa halkaasa lagu degaa dhulkaaga lagu ogaa harkiisa lagu nastaa halkaasa lagu degaa hamun looguma dhintee hoogantiisad hoogantiisad cuntaa dadkaagaad yeeshataa ciidadaad haybsataa dadkaagaad yeeshataa ciidadaad haybsataa ciidada haysataa hamun looguma dhintee hoogantiisad cuntaa hoogantiisad cuntaa dadkaagaad yeeshataa ciidadaad haybsataa dadkaagaad yeeshataa ciidadaad haybsataa ciidada haysataa hawkar iyo maaha waa farsiyo lama degaan habasiya boodhaho carradu hoostay martaa waxay wataa caagaan hawkar iyo maaha waa farsiyo lama degaan habasiya boodhaho carradu hoostay martaa waxay wataa caagaan bulshadu waa habar wadaag hilbiyo dhiig wada dhasho mira ku midoobayo hadaf bay wada qabaan mira ku midoobayo hadaf bay wada qabaan habeenada kiila way hayaano way hagaan heetiya way kabaan bulshadu waa habar wadaag hilbiyo dhiig wada dhasho mira ku midoobayo hadaf bay wada qabaan mira ku midoobayo hadaf bay wada qabaan habeenada kiila way hayaano way hagaan heetiya heetiya way kabaan hormuud meelaad u tahay haliyey meelaad ka tahay hormuud meelaad u tahay haliyey meelaad ka tahay ku tahay odanaad ku tahay qofay badlaad ka tahay ku tahay odanaad ku tahay qofay badlaad ka tahay dalkaaga
كتهاي وتهي هدنات كتهي وفي بلاد كتهي وتهي هدنات كتهي وفي بلاد كتهي دلكاغا 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 لغا هلا دلكاغا 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 لغا هلا دلكاغا 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 لغا هلا dhulkaaga lagu hodnaa harkiisa lagu nastaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشركة وزارة وشراها هذا شعيب محمد قاسم. أخليك مع الطويلة وينك عاصمتنا أمباسطورك سكري حسن وعيس وعاشا تناسبها الكل من الطويلة برسالتها وقيا الكل يحس بكمية متشرفة وينك تنقل جميلين طريقة عينات بولسة أبطا حجبانها قدرة صنفاقة كاسماشي هنا ثابت ونسان مطولة وانتو جولة عقاش رئيس عاليمها السلطان إبراهيم السلطان عبد الرحمن عقاشة والسلطان يقنا والسلام عليكم ولا على اسمنا هنا إنه أنت ملاحظة يعني كيف يمكن الحضور مع عبد الأمور لما تروح على السلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفاجأتك واحد مستمع علينا وحبيت لك أوراقيا شوفنا ونسق لنا نحفظنا waxaan maanta soo dhaweynaynaa oo soo dhaweynteedna cadaaladda ay maanta waan soo dhaweynaynaa safiirka waddanka suudan u jooga somalilan sakariya xasan wacays jawaabta sharafta badan ayaguna la socda hogaaminaya ag socda waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolkii gabriya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مركب هراء waxaan salaamaynaa soo dhaweynaynaa si weyn u soo dhaweynaynaa xafladda bahada baylaada sakariya axmed wacays banjiro sakariya axmed wacays oo u dhashay gobolka iyo marka hore si weyn u soo dhaweynaynaa marlabaadka sakariya xasan wacays baaku marlabaadka ummadda sharafta leh ee labeentii gobolka وسيدي دكتوريواسي دكتوريواسي تمام تصوري جامعة عباسي عبد الله إله سلطاني تمام فتحتي كبرك تمام حتى سلام يا إلا من كوية وقدرنا يجب وقفة وهو الكوية ما تكسر إلا جبني نسبة قدرنا يجب وقفة وقت شرفت وحكو سلام سلام الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل النفر بس وحول نفر سهل وحسيري ستارين تهدي يعني تدفع انت يرحى ستهدي بيرحى وحيسا تارين تهشيري مرقى واحد بحسوس وانتقيا قليوها وكرا بحسوس تختصتها وحقتها رأي يقوى تارين تهشيري waxaan ka warqabaa inkastoo inaan qoon badan isku hayna baasaboorka sakariya xasan wacays
jira ninka ugu waxtar badan gobolka ee ugu kartida badan leh ee ugu xasuusta badan leh ee ugu waxqabadka badan leh gobolka inuu yahay aad iyo aad baan usoo dhaweynayna maadaama uu yahay ninkii gobolka aad u xasuustay annaguna aad baan usoo dhaweynayna qodobka kale waxaan maanta ku jirnaa sanadkii cusbaa iyaan ku jirnaa kowdii sanadkii cusbaa 7 ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadkaa inuu sanad barwaaqo ah oo abaarta faraha badan leh ummaddan weydisay in ilaahay inaga saaro ilaahay baan taana weydiisanaynaa mar haddii culimmadii iyo marweynkii iyo odayaashii iyo mutacalimiintii iyo madaxdii mas-uuliyaddu saarayd ee wax laga aqbalayay intuba haddaynu isku nimid an ilaahayna badina abaarta in ilaahay naga saaro ilaahay baa wax qaban kara ee dunyaada waxba ma qaban karo kebigeenu haddaynu isku tagno waxba qaban kari mayno kollay inaynu naftageeda qayino mooyane waxba qaban kari mayno marka xafladani waxaadna midbay ku suntan tahay waxay ku suntan tahay maanta soo dhawaynta rag iyo dumar madax iyo mito duumi iyo caamo waxay ku suntan tahay sakariye xasan waxays in wafdiga uu hogaaminayo ee ay nooyihiin inoo sharaf tahay ee culus ayuu ku suntan yahay soo dhawaynta sidaasaan kaga baxayaa dadku wuu badan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سكرية حتى وعيس أباصدوركا وأنا كسرت ربطي تعرف كلها مهمة سبوك يوم بيني سبوك النيرة هي معي أبدا يا كسرت وين إنه سفير كان النيرة أبدا مرة هني وحب السلامة دمان راح يوم ترى ومرة هل كان السرود من إذا جميلي يوفي النيرة هي معي أبدا إنه يقولك السلامة سيوسيرك يا سلام الحدودنا أبيك تمام يا سمياش كرتون ما يبقى سمك أركيسة بس أبك هو إياها حسب لكم من عيال الله ما يبقى سمك مني وأنا بقول سلام يا أولاد الله سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت عارف روح يسوون لك سنة يقولوا سوق وين هاي ولكن سكرية حسن عيس وسفيرك سوري الأوروبية وضعك السويدر وحيوانين هيسوفي بسهولة اليوم خبر كاغي يدك ملك أظن أعطي هذه أبان بسهولة كل محمد يسوكيك وحوالي الهدية طبعا بيسوكو صوت حنين هدين مقاشر نهي هدين السلامين نهي هدين الهيين كما ولد نهي وحيسوكيك يعني وحوالي ولكن سنة المسؤول هي نهي كل سهوية فهيك وحلمت أحد كي يخشوك بكوينية سفير كسوكو دول كاقي وحقبت كاقا هي تاريخ هذا وححسية مدحوينها السومالي الآن يبقى دورتي وقت وحكرت لماذا إيجي سكينة فارسكو داران مايو أنا أقول لك هنا وقتلك السومالي الآن إمامك وحكامين مدحوينها قلك السومالي الآن وكسر تنتهي إنه حكم اللي يرضى ومسكح دولة يوم رفوقنا وحكرت بأيدين الله قلك السومالي الآن أول عاضي نبقى حلقة وقوع بوية وحوالها يكون مقعاضي أكا الطاقوري وعن غير يكسر وقوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تسليك المجتمع الله شعب على الانسان اخوات المحكومين السلام عليكم فرصه فضيلة بدوريها مع غير عصمنا الفرصه فكرة وهو كمان اسم الفنوات حمزيك عندها في دور حسن العرس
المبادرة كلها تنظم الأسباب كلها محدودة وفيها جديد كمان المسؤولين تكون خلفوها هذا عارفة الدنيا سعودينتا وغاشة بعد علاقة تسبب في الناس بعد علاقة كما يسأل ويقول الكتاب في كل الكبير كان هذا أقوال الناس فالناس محمد تعالى سوى المشتك في الحال وكان ولا يوجد ويقول أبا سفير حسن عايز سفيرك سفير سوري أبا سفير ربنا قاري ونفسي واحد قصة تقول الكبير كان فهمه واقع وطن الله عروسنا من يعطينا كذا آب تفرق من واحد سنة طلع هناك من فترة وعزمنا طول وقع بالفرقة قصر وصام إلى فترة وعلى الفوتر الثانيين وعلى الفوتر الثانية وعلى المسائل وقالت كذا وقوم هو صحبه يعني دور الجميع وقت الفرصة تصل فيه هذا ما يحصل على المرضى بالقرآن من أسبوع قبل وكشف السفر عن فيسي وكشف السفر أقول في ساعة كتابية هي تقارير كلامك هي في النهاية هذه أسرة عن كلام ناطرة وعلى غيرها ما تنفع تفرق بهم وتنفع يقول الجميع ماشي وتنمى وتترسل بخصوص وبسوا تدفع هذا ما تعرف نفسك سكروا كيف الجميع أقوال هنا ساعات وفي قناة أنا بيا أنا ماذا أقول مع السلام عليكم لا تسمع هذا هذا بفصل هذا اسمه كارو اسمه كارو وتكارو وهنا أنا ما كنا نعرف كنا نعرف هذا الزاف يعني لا ترى بفصل ثلاثة وهو الفكرة في متصل هذا الوقت شكرا أبغى أقول فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلينا هاي كنا وكودي سنتي بشعر سنتي عسبت لو كنت تبيتهم وعلى كبرينا إلى السنة كي نقول سنة الواقع أبارها إلى هاي الوقت كنت إلى هاي الحبيب سودري وحكروا لي وقت هاي السنة قلبي هذا يتكسر وعلى يا ربي وشرعي نوت بالله سوى أحسن وكرجع له سيدي مركور وعلى يسيب سيبر تتكلم شلون إذا كان لما محنا ما ستر واحد قوي ثاني دملاني وأكاد سلطي وحسب المحنا غنا والعاوز والهون ومعاوي أبا ستورك وعكران سوى السلامية أخيرا سوينا أجسنا سوينا وشيف شعيب فقعت جيلو هذا يقول في المدينة أنا ما بنينا روح صبرتين وعلى وعليكم السلام يا صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي كمية وسيرة من الكوريات كشورة مدحتوية أبصر دور كيس المدى مدحتوية إيو وقاشة سرادينتا ورضا هواكا لم يرضى بموتينك لما تبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلة المانتا ينشرونه حفلة المانتا هو سنة كي عصبة لما كلية تطبيع توقع وحينه قبلني وأنقصوا دويننا ستي رن وكريا لابله أنقصوا دويننا ولكن سفيرك وسبب الله عندك إسبيرن سكريا حسن وعيش ومانتا ومانتا إننا وركنا يوم مرتي لكن شوغا مغالديسي يقولكيسي يتدكيسي دع شوغا حتى قولنا إنه إمجني سكريا رمانتي ما أهل الأسوب ومانتا ومغعاوي سكريا قرن الصومال لا بكسر شقيه وهو مدورين شاليه يدك إسبيرن شاليه ذات يدك يوفر في العراب
وما تشغلت بحسوتها وعنكي ما يرد السومال لا دولا صوت بريه وتغير وأنا شعيب هاي مرة عنكي هو بلغات كفرات بدوين وقف في يدك وشوفي يدك كشار كبار مشاريع فرح بدوين مالنتي وأها شعيب مير كوارن لو بدن هذه بدن قانوني وهو سكرية نكى كسر فريه ودمر سكرية ونحن ويسكار صاحب واحد وحلانا إيمانتا حل عصب الغمر نيبنا كي هولد هيسي يبقى الوجه واحد هولد هيسي يبقى الوجه حل عصب معها سكرية وحلانا سكرية آدي ألبك وهم هندقنا وحن كسر دويننا magaaladaadii dalkaagii iyo dadkii aad ka dhalatay oo aad maanta dhex joogtay ayaan ku soo dhawaynaynaa waxaan kuu rajaynaynaa xilkaa cusub ee safiirnimada ee lagu magacaabay waa xil culus waxaan ilaahay kaaga rajaynaynaa in ilaahay kuu fududeeyo xilkaa in ilaahay kuu fududeeyo kugu ducaynaynaa haddaan madax dhaqameedkii nahay gobolka Gabiley waxaanu kugu ilaahay kaaga baryaynaa in ilaahay kuu fududeeyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somalilandna waxaanu ka mahadnaqaynaa inuu ninkii munaasibka ahaa ee ku habboonaa ee ka soo baxayay dalkiisa aadaan wax baleerana dhammaanba qaranka jamhuuriyadda Somaliland waxaanu ugu hambalyeelana in ninka fiican loo magacaabo booska fiican الرجل المناسب في المكان المناسب سكرية وحدنا سودو أديك يوفق الهجامين سوا آلي أبوكم أننا وحن كارب شيئنا حالكي هوري يوحقلت كاري هوري يوهر مركي الهور بدي إن أدلال كسر يسمى الهيكستين كسر له مرة مرة حربة نقل نفسه نقل نفسه مالتي هو رئيسي يا الرجل موجود سمعتين حتى كورنو أتمنى أنت ضمن وضع ضغطها وحنا نفرنا ودوينا أقوى كبيرة ضربة عيا قربها ما في رجينا إلى ثاني سكري أجازوا يجوا واحد ولا ما يتكلمون يقولوا وين أنا وسيرك محايد أجساد ومدحتوية المحايد زين أو محايد حياتها مايك مايكها مايكنا لما مدحت كلامنا هتيجي سوق الكل في الولاء وحنقول سلام يا يوم الزوجة وتناول الدماء فيها وحنقول سلام يا يوم كاسمها مدحتوية وحنقول سلام يا سلام تقال يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحويا ما أنت عادي الموقف صنع وخلص من وحوي سنة في الأسبوع إلى هوينا واحد كأنا واحد مكبر إلى سنة في الوجود ده أبر واقع يبش احتراف لا ينهله أيام هرب سنة كإله يكبر إلى مرلبات وحنا كسر دوينا يا أنهم طريقة عادي قيمة طبعا أن لا هي ولا كسبة ولا كسر عليه صدوا عم بعصبار أيام لا هي صدوا صدوا كذي وحنا هاي وكلام عادي طالبوا بحي سقطنا ونقول لنا هاي ونقول شغالنا إن شاء الله تعالى وحنا قصدنا أمباسطور في كعادي سريعي وقصوا بولي بالدولة الصومالية الآن يوم احتراف إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى وكسور دوينا ألبان كسور دوينا ألبان كسور دوينا كسور دو قبل كادي كسور دو قبل كادي عقارنا كسور دو تكمل هذه جديدة وكلنا هاي تعمق فرن كسور دو إن شاء الله تعالى. وهو
qiimo badan oo leenahay madaxweyne waad la asiibtay ambaasadoorka aad noo doortay halka yahay baqitiba leenahay maadaama aad lagu dhintay sekeriye xasan cayn وحنا لها مدحوينها مدوديسة قضياش أوردن وحنا لها إن شاء الله تعالى إنه حوية سنة في الواسطة كمسلكة لكن وحنا لا يهدنا كبرنا إنه سنة عافمات قضاء إلى سنة خير قضاء المغربة إنه عافمات النساء الدعية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحبه أجمعين أما بعد مرضى إلهي بأمهاتنا سبحانه وتعالى إلهي نوصل إلينا إنه مبسوط حفلة قارقة اللي كسر دوينا يا أمباسطور زكريا حسن وعيس إلهي بين مرضى روما هنقينا هذه أنا يسوي نص ولا بين رتين أو هيصور كشيء وحلنا الحمد لله يا فقراء مرضى إلهي بأمهاتنا مرلبا وحبيت مودا صوتي دباس القرقة وهذا كنا إلى كلام إلهي وقفوا كتجيو وحويت كل أنت لك تجاوا حويت إلى استمع لها هاتو وحمد وراك كسلام يا وزيرك وزارته والشرها المغنى شعيب محمد موسى أخيك مدحتوينا حسين إنجنيرات حسين هذا العقدين على اسمها جود مدحتوينا مروة خضرا حاجي إسماعيل يونس خضرا حاجي محاكورا مايرها عازمتها الجيزة مايرها عبد الرحمن بن حبوب عايزين صوتيكم وحن سلام يا طريقة مضغطنا ملحظة حسبك فغيا كل حسبك كلية وحن سلام يا الجدورية وطاوية قرن كناو وحن سلام يا انت عقاشة عمامنا حقا دليلنا هوينك كلية وجيدو هي هدف ليسويني كان ما تعينو فردينو ومن يكسو لوينينو أمباسادور فرسو أنا ينام مقعابي أمباسادور زكريا حسن وعيس وحلينا هاي مركو هوريك أمباسادور سو دو قبل كاغي أو البلدة كل من تبي وحنا كوكسو لوينينا دعم فرن يديان سن يغلب صافية سو دو ما كلنا هاي أمباسادور أنت بيتها سو دوين تكلمة وحنا علينا يا مدحوينها قرن السوداني الآن بين أحمد محمد محمود سيدايو مقعابسة ومقعابي أمباسادوركا كنت يحلقوا والله منه midnaba mid loo igmado qof aan aqoon u lahayno dee waqtiga iyada suu ku siiyo midna waa xil la siiyo intii ku habboonay ama aqoonteeda lahayd waxaan odhan karaa xilman maanta sakariye magacaabistuubaa la magacaabay laakiin xil loo walba hayay oo uu qaranka u hayay ayuubaa yacni loo magacaabay maanta waa shaqadiisii waxaan aaminsanahay inuu wax badan ka tari doono اعتراف كصوماليا واحد بدنا وينوصل كورتين دونا إن شاء الله تعالى وحلانا هاي أمباسادور إلى هاي أفضل كنا خطوط ولايو كلش الحين في أهدافي أنا يبغى وصل وينيا وحنشعل هاي كمان تفكير إنك تقول توصل بدري هاي وأنا نحن chance لبعض وصل نقطة إن أنا بدوسيو أول أنا شهادة شرف الوقت أنا كنا أمباسادور كا وأنا ثم أمورسيا ترتيبي ويا كمان في هراء أنا نوصل قصي هي مقعابسة عصور حتى لو مقعابين لو أنا كون كنيسة وحنشعل وإنا بدوسيو إن شاء الله تعالى شهادة سوحي موصل إصابتي ما نقطع مصدر لماذا سبقوا الزرع مصدر وما خصوصا دونا إلا هولي هراء أنا كنيسة هي أنا شخصية مدرسي وحولي أوان كفر المستعينة لكن إن شاء الله حقا نولي دونا مصدر يسمع موسى وكما نقول بشوكنا رسول الله وعدوان للعالمين الحمد لله رب العالمين ما قرأت أمها القيام
ambasadorka xilkan loo dhiibay xilal badan oo ka weyn ayuu qaranka runtii ugu hayaa oo aad iyo aad u ballaaran magacaabista loo magacaabay maanta ambasadorka waxaan leeyahay madaxweynaha halkeedii baad dhigtay raggeediina waad diratay ilaahayna hala garato ambasadorka runtii wax la soo koobi kara maaha dad badan oo iga horreeyeyna way xuseen waxa weeye ambasadorku nin isagu isku xil saaray qadiyadda somalilan ayadoo aan cid alle cid haba yaraatee caleema saartay ama cid alle cid xilkaa u dhintay aanay jirin waxa weeye nin qarannimada somalilan aad iyo aad ugu dheer tahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in horta xilkan loo dhiibay uu guulo aad iyo aad u badan uu ka soo hooyo sida aan rajaynayo ama aan sakeriyo ku aqaanana uu ka soo hoynayaa guulo aad u badan wuxuu keeni doonaa wax badan oo dalka iyo dadka badeeqa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay xilka uu u fududeeyo idinkana waxaa la idinka doonayaa khaas ahaan gobolka uu ka soo jeedo ambasadorku in aad duco iyo taageero aad u muujisaan ambasadorku waa nin raga dhinaciisa laydinka soo dhici maayo idinkayaan dhankiina looga soo dhicin taasi waa iga dardaaran guud ahaan waxaan marka labaad u mahadnaqayaa marka saddexaad aan u mahadnaqayaa marwooyinka reer Gabley oo maasha Allah mar walba qarankooda hiiliyo hooba la berbertaagan waxaan u malaynayaa raggu waxay isleeyihiin maxay marwooyinka nasri ugu horeysay waxaan marwooyinka ugu horeeyey markaan anagu qurbaa joogno waa muraayadda aanu ka aragno xaaladda uu dalku marayo dumarka ayaa noo soo gudbiya markay noo soo gudbiyaana waxaanu garanaa waxqabadkii ragga dumarka ayay ka dhex muuqdaan mar walba walaalkay ambasadorka waxaan leeyahay walaalo waa ku ducaynaynaa dhammaantayo waxaanan ku leenahay kartidii iyo firfircoonidii iyo aqoontaadii la soo kala bax dalkaaga iyo dadkaagu way kuu baahan yihiin ambasadorka waxqabadkiisii ugu horreeyey waxaa maanta halkan inala jooga qola dhakhtaraa oo Sweden uu ka soo sheegay waxaanay booqasho ku soo mari doonaan dhakhtarka weyn oo la eegi doono baahiyihiisa iyo waxyaalihii haddii aanu nahay qurbajoogka lagu soo caawin lahaa waxqabadkii u horreeyeyna jidka ayuu ku soo jiraa konteyneradii loogu talagalay dhakhtarka Gabley iyo Wajaale waxay ku soo jiraan jidka waa waxqabadkii koowaad waxaanu idin ballan qaadaynaa annaga oo dhammaantaya isku duuban oo ku hadlayna afka ambasadorka waxa iyo wax ka badanba inaanu dalkayaga iyo dadkayaga diyaar ula nahay oonu dadaal aan la qiyaasi karin aan ugu jirno sidii aanu baahidiina u dabooli lahayn eenu wax idinka qaban lahayn ambasadorku waa nin runtii aad iyo aad u ballaaran waanu inagu wada filan yahay bismillah aynu nidhaahno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maayarka caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Foteefo agaasimaha madaxtooyada Xaajiyeen afhayeenka madaxtooyada maayarka Gabley barasaabka Gabley iyo sanaadiinta iyo xubnaha ee halkan jooga iyo xogayaha xisbiga oo kulmiyada waxaa halkan iyagana ila
isagoo guddigii dalladda Sweden oo uu ka mid yahay Cali Xasan oo ah xogeyaha dalladda Sweden iyo gudoomiye ku-xigeenka Hussein Wadaadiyara maanta fadhiya aad iyo aad baan runtii sharaf weyn oo tahay haddaan dalladii nahay inaan si munaasabadan aadka u qiimaha badan ee runtii reer Gabiley ay ku soo dhaweynayaan Ambassador Zakariya oo in muddo aniga iyo dalladu aad aan wada shaqaynay muddo ilaa 10 sano gaaraysa Zakariya runtii dad badan baa ka hadlay aniguna horaan uga hadlay runtii waa nin aad iyo aad u dadaal badan nin karti badan nin runtii jecel Somalilandnimada runtii intuu gudoomiyaha ahaa Zakariya tira ilaa iyo 70 wafdi oo reer Somaliland ayaa isu yimid horena umay dhicin أنا وحيد كتير من الكيسة يشغل وقف في سوماليلاند Zakariya runtii wuxuu u yahay safiir Somaliland oo dhan gaar ahaan reer Sweden Zakariya waxa uu kaloo maanta maadaama ay tahay booqashadiisii ugu horeysay gobolka Gabiley meelo badan oo ka mid ah Somaliland dhawaan uu mari doonaa oo uu la kulmi doonaa bulshada reer Somaliland waxaan leeyahay saaxiibkii Zakariya maadaama aan ahay gudoomiyihii dalladda Sweden guddigiina oo joogaan horena u balan qaadnay inaan kala shaqayn doono safaaradda cusub ee laga furi doono dhawaan Sweden horena aan looga furin ee noqon doonta dib u horeysay ee laga furo dalka Sweden safiirkuna uu hore u balan qaaday insha Allah idinkuna faatixada soo mari doontiin dhawaanna markaan noqono xarigga laga furi doono wax badan ku dheeraan maayo Zakariya hadduu la yiraahdo waxqabadkiisa anu si gaar ahaan baan u garanayaa muddo badan baan wada shaqaynanay waxaan leeyahay Zakariya halkaas lagu dhigo ilaahay ha kula garab galo waa mahadsantihiin runaantii aad baan ugu faraxsanahay in walaalkay Zakariya Xasan Wacays oo runaantii ah muwaadin karti badan awood badan in badan soo shaqeeya dalka Jamhuuriyadda Somaliland inuu maanta noqdo ambassadorkii Jamhuuriyadda Somaliland oo faraxsan waana soo dhaweynaynaa waana kula shaqeynaynaa waana ku wada shaqeynaynaa waxaan noqon doonaa insha Allah taala markaano wada shaqeeya oo kala hadin intaas kadib waxaan doonayaa inaan isu bushaarayno كاريرا أما كاريرا كبيرة إيجولا وتجسونا أمباسطورنا يوم مسؤولين تكلا كانوا ممكن هاي بدوبيا جامعة بقى إن كونتينر كوري صار كوري وتك الحبيب يا وتنين إنه ما دورو بقى هذا كبيرة هو يلا تكها بتكلوي كونتينر waxaad sabab u tahay dhammaan dadka reer Gabiley ee jooga dalka Sweden iyo ambassadorka oo qayb weyn ka qaatay iyo odayaasha ay jooga qaatay soo runtiisii iyo waan qayb weyn ka qaatay waxaan ugu talagalnay in dadka reer Gabiley ay ka faa'iidaan iyo ixsaanka waddanka هذا هو فرحتنا إن ربنا وقعدت سجل الدولو ما يركب مجالنا جميل ويسقوا بقوليه ما يركب لو قفر اليوم إنه قلب كاسي لبنا نلون لو بيو جامعة يو جبلي صار جبلي وشالي جامعة إنه يسقوا قعدت سجله كنا كمثرو كنا هذا هو waxay sabab tahay idinkay sabab idin tahay waxa laga yaabaa waxa marka aad hagaajitaan
hagaajistaan meel dhigataan in qalabkaasi laydiin soo kordhiyo oo laydiinka soo kordhiyo waxyaalo badan agan dhakhtarad joogta runaanti way kurbani doontaa meesha talka waa eegi doontaa wixii kale ka dhiman ee qalaba amba daweyna insha allah ilaahi karim waan keli doonaa waan ku faraxsanahay inay reer Gabiley u muujiyaan ambasador Zakariya say u taageersan yihiin waayo waxa weeye ninkan meeshiisa goobta uu ku dhashay iyo dadku ku dhashay aanay taageersanayn gabadhii la xuloo keenayo taas waxay u tahay maanta fariin ayay tahay waana idinku hambalyeynaa dhammaantiin haddaan hadalka tagana wixii aan qalday raalliga ahaada haddii intii yarada fiicanana batay anna waa laygu soo daray marka kolleana loo kama doonanayaa labada tubood waxa weeye saaxiibkii Zakariya anagu isku reesula baan nahay maalintii aan dallada u dhiibnay waxaan garanayaa dalladaasi halkii ay taagnay bisee wadaadyoona fadhiya ayaa iga markhaatiya dalladaasi halkii maalintaa taagnay waan wada garanaynaa iyo halkii uu gaadhsiiyey kolley waxaan u qirayaa wax dhaba waxaan rajaynayaa in iminka hawshan loo igmaday ee wakiilkana uu micnihii midho aad u fiican inuu insha allah maaragtay ka keeni doono ka midho dhalin doono waana nin dadaal midhana waa taas hortaanu kulle idiin galayaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa magacaabista uu magacaabay waxaa kaloo iyadana aan jecelahay inaan Zakariya ugu duceeyo inuu xilka ilaahay uu u dhib yareeyo waxaa kaloo aan jecelahay waxaa jirta marti sharaf kulle maadaama kooxdan iminka meesha wada socota ay isu dhalo badan yihiin qolo kaloo iyaguna isu dhasha oo formasi hay-adda la yidhaahdo ayaa iyaguna inala fadhiya iyagana waxaan jecelahay laba kelmadood isu dhashay inaan kula hadlo Nismanska delegationen de är jättevälkommen till Gabiley. Vi vill er solidaritet att hjälpa till Somaliland, så vi är tacksamma att ni är här idag. Välkommen med öppna armar. Välkommen. waxaan markaa jecelahay in aan hadalkayga aanan sii dheeray laakiin waxaan saaxiibkii Zakariya waan u ducaynaynaa isagana ilaahay xilka ku asturo arrimaha la idiin sheegay hadday tahay alaabtaa soo socotay caafimaadka waa caawimadii reisku haddaanu nahay aan soo diri jirnay Zakariyana isaga abaabulka ugu weyn lahaa alaabtaasna way noo imanaysaa insha allah waxaanu kala qaybin doonaa cusbitaalka Gabiley iyo Kabo Jaale iyo jaamacadda inuu kala qaybin doonaa waxaa kaloo iyadoo dhawaan noo iman doonta kursi biyaha sifayso oo la dhigi doono iyadana cusbitaalka Gabiley oo dadka bukaanka iyo dhakhaatiirta iyo shaqaaluhuba ay maaragtay warshada ka faa'iidi doonaan marka waxaan jecelahay reer Gabiley inay gacmaha is qabsadaan sida ay gobolkooga gobollada kale u dhaafin lahayn insha allah waan idin ducaynayaa assalaamu calaykum waxaan ku sugan wafdiga heer qaran ee uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda warshadaha Shacayb Maxamed Muuse agaasimaha guud ee madaxtooyada afhayeenka madaxtooyada maayarka magaalada Somaliland xogayaha guud ee xisbiga Kulmiye matalayaasha madaxweynaha xubnaha qurbajooga gudoomiyaha ururka qaranka naaw madaxda dhaqanka ee kala duwan madaxda asxaabta qaranka madaxda ururada haweenka madaxda ururada dhalinyarada bulshaweynta reer Gabiley maamulka heer gobol iyo heer degme gobolka Gabiley boqorka aynu maanta halkan u fadhino ambasador Zakariya Xasan Wacays oo aynu madashan isaga maanta u samaynay iyo wafdiga la socda waxaanu leenahay dhammaantiin soo dhawaada aad baan idinka mahad celinaynaa ka soo qaybgalka iyo sida qiimaha leh aynu soo dhaweynay ambasadorka iyo xubnaha galbinayaba shacabka reer Gabiley sida diiran ee sharafta iyo karaamada leh u soo dhaweeyay aad baan idinka mahad celinaynaa hadalka dheeraaday dadka qiimaha badan leh kala duwan goobta jooga dadweynaha xooggan sida weyn u soo abaabulay waxaa soo dhan waxay ka turjumayaan miisaanka uu leeyahay ambasador Zakariya Xasan Wacays
laba qodob baynu u joognaa qodobka koowaad waxa weeye inaynu ambaasadoorka soo dhoweyno hambalyayno ku ducayno ilaahay u weydiinno mas-uuliyadda loo dhiibay inuu ku asturo inagoo kalsooni weyn ku qabna mas-uuliyadda loo dhiibay iyo siduu uga soo baxayo sababtoo ah hore loo soo tijaabiyey inta uu guddoomiyaha ahaa jaaliyadda reer Soomaaliya ee Suudaan iyo dadaaladii uu qabtay qarankuu shaqeeyey gobollada kala duwan ee dalka uu shaqeeyey gebile uu shaqeeyey intaa waanu kaaga mahad celinaynaa ambaasadoore waxaan rajaynayaa kartidii lagu yaqaanay iyo firfircoonidaadii iyo hawlihii aad qaranka u haysay inaad sii libilaabi doonto tii aad shalay toona adigoo istiray ka shaqaynaysay ayuu maantana qaranku kuu wakiishay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu kuu wakiishay waxaan rajaynayaa in aad halkaa ka sii wado oo ilaahay kugu guuleeyo waxaan guud ahaan hambalyaynaa dhammaan jaaliyadda reer Suudaan oo ah jaaliyadaha aad iyo aadka ugu firfircoon isku duuban waxtarkoogana aynu ka warqabno waxaanu idinka guddoomanaa deeqaha aad maanta halka kaga dhawaajiseen waxaanu leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxqabadkiina horena waanu idii ogna intaa marka laga yimaado ambaasadoorka waxaan halka jeclahay anigoo ku hadlaya afka dadweynaha gobolka Gabiley khaasatan caasimadda gobolka guddoomiyaha ku hadli dooneen waxaanu hambalyo u dirannaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweyne waxaanu kaaga hambalyaynaa in aad ambaasadoor Zakariya Xasan Wacays aad u magacaawdo safiirka Suudaan waxaanu ku leenahay madaxweyne waa nin ku habboon oo aad magacaawday goor ku habboon oo aad u magacaawday meel ku habboon yahay waanu kaa guddoonnay waanu kaaga mahad celinaynaa waxaanu ku rajaynaynaa waxa aad ka filaysay iyo wax ka badanba inuu qaban doono hambalya Zakariya madaxweynaha hambalyaynu u dirannaa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waxaanu rajaynaynaa inuu guulo waaweyn u soo hoyn doono aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan ku soo dhoweynayaa fadhasaafka gobolka وسلم مدحda heer qaran oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda warshadaha agaasimaha guud ee wasaaradda madaxtooyada afhayeenka madaxtooyada ayaha guud ee xisbiga talada dalka ayay kulmiye marti sharafta kale ee la socota wafdida heer qaran ee Hargeysa noogu timid meeyarka caasimadda Cabdiraxmaan dhammaan marti sharafta kale ay ugu horeeyaan salaadiinta boqorrada cuqaasha madaxweynaha haweenka iyo dhammaan dadweynaha reer Gabiley assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa maanta sharaf weyn inoo ah inaynu halkan ku soo dhoweyno safiirka cusub ee waddanka Sweden uu dhowaan u magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Siilaayo Zakariya Xasan Wacays runtii anigoo ku hadlaya afka gobolka Gabiley dadweynaha inta halkan joogta inta maqan dhammaantayo safiirka waxaanu ku soo dhoweynaynaa gobolkiisii gurigiisii waxaanu leenahay ku soo dhowow gacmo furan waxa la yidhi Soomaalidu waxay ku mahmaadaa abiskuul meel lama wada joogo warna iskuma seeganaan shakhsiyadda Zakariya anaga oo aan imanin gobolka runtii ayaa waxqabadkiisa howlkarnimadiisa iyo waxa weeyaan dadaalkiisa aan ku haynay gobolka aan joognay kadib haddii aan gobolka yimi waxa kale oo iisii dhaafdhaaday waxqabadkiisa laba nin oo aan halka ka sheegi doono ninka koowaad oo wasiirka Shucayb Maxamed Muuse ninka labaadna waa meeyarka aad iyo aad baan xilkan loo magacaabay Zakariya ugu ducaynaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu uga dhigo ninkii xilkaa sidii ugu munaasibsan uga soo baxa waxaan jecelahay halkan inaan uga mahadnaqno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la yidhi ilaahayow annagu ma dooran karayna noo door runtii wuxuu dooray mid munaasiba waxaan u dooray goobta munaasibka ku ahaa aad baan madaxweynaha ugu mahadnaqaynaa mar saddexaadka waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo dadweynaha reer Gabiley oo runtii mar kasta muujiya taageerada ay u hayaan qofka waxqabadka ee gobolka ku soo jeeda
oo waxa weeyaan muujiyo dareenkooda soo dhawayntooda iyo sida firfircoon ay markasta iyagan u yihiin inay uga falceliyaan qofku waxa uu qabtay idinkana aad iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaadiintooda sida isku duubnida leh ee quruxda badan leh ee ilaa markaan gobolka Gabley soo galay ilaa ibka loo soo dhaweynaya ambaasadoorka waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxda kale halka joogta wasiirka afhayeenka xogayaha xisbiga iyo dhammaan agaasimaha guud ee madaxtooyada la taliyayaasha dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan reer Gabley kula faraxsanahay soo dhaweynta ambaasadoorka Sakariya Xasan Wacays oo leeyahay soo dhawow iyo madaxda jaaliyadda oo la socda gudoomiyihii oo ah gudoomiyihii dalada Mustafa gudoomiye ku-xigeenkii iyo xogayihiiba iyo nin aad loogu qaaliya oo horaalkan looga sheegin Musas ninka kanisa ninkaasi waa shakhsiyad reer Soomaaliya si fiican taageera la shaqayn jiray qolada Kaafi Farmaajo Musas waa nin aad uga shaqayn jiray Sakariya tiimkooga qadayada Soomaaliland aad uga shaqeeya waxaan leeyahay isagana soo dhawow Sakariya gobolka Gabley kuma koobnayn goboladoo dhan waxbuu ka qabanayay intuu halkaa joogay annaga maayagadoo dhan markaan halkaa tagno tiimkana soo dhaweyn jiray ragga qaar hore kalena waxay ka iman jireen waxaa laga yaabaa masaafad ilaa 2 kilomitir inta ka soo socdaan inay wax nala qabtaan aad baan ugu mahadnaqaya in markii koowaad laga furo iyadana safaaradda imika la furo oo iskandinaaf iyo boorna halkaa uga wakiil noqoto aad baan ugu faraxsanay waxaan halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inta dalka joogta maaha inta dibadda joogta siduu xogogaalka ugu yahay waddanka Sweden shakhsiyaddii ugu firfircooneyd oo Sakariya ahayd uga qaatay inuu arganaha ambaasadoor noqdo waddanka Ingiriiskana wuxuu ka qaatay inantii ugu firfircooneyd iyaduna ayaan ahayd inay noqoto mid masafi madaxweynaha aad baan ugu mahadcelinayaa iyadoo taasina jadka baalaska ay samaynayso labada dhinacba ay shaqaynayaan waxaan leenahay Sakariya soo dhawow hadalka ku sii dheerayn maayo reer Gableyna aad baan ugu mahadcelinayaa aad baan idinku mahadcelinayaa aad baan assalaamu calaykum halka ka soo qayb galay meeqaab kasta iyo mas-uuliyad kasta ay hayaanba marti sharafka iyo dadweynaha qiimaha badan ee reer Gabley ka jooga wakaamaya saaka kadib waxaan aad uga qaliyanayaa ambaasador Sakariya oo loo magacaabay safiirka cusub ee dalka Sweden runtii siyaasadda xisbiga kordhiya iyo xukuumaddiisa ayaa waxay tahay in beesha caalamka ama dalalka daneeya arrimaha Soomaaliland ee xiriirka weyn laga dhexeeyo in loo magacaabo diblomaasiyiin karti badan aqoon badan oo ka mida dhalin kara danaha Soomaaliland iyo xiriirka iyo isku soo dhaweynta dalalkaas sababta waa master Sakariya loo magacaabay waantaas aad baan loogu kalsoonahay kartidiisa aqoontiisa iyo xirfadiisaba waa nin dhalinyaro ah aqoonyahana la soo tijaabiyey waxqabadkiisa xidhiidho badan la leh dalka Sweden aad u yaqaano siyaasadda dalka Sweden iyo maamulka dowladda Sweden si ay u shaqayso waxaan filaynaa in uu ka midho dhalin doono xisbi ahaanna sababta aan halkan u taagannahay waxa weeyaan sababtaas inaan guudigelno safiirka cusub iyo uga ducayno ilaahay aan ku astiro xilkiisa waa waqti dambe hadal badan odhan maayo intaas ayaan ku dhaafayaa arrintaas danjire Sakariya waynu ducaynaynaa waan ku kalsoonahay waan u gacan taagnaana waxaan kaloo jecelahay inaan halkan uga faa'iidaysto fursaddayan inaan u mahadnaqo dadweynaha gobolka Gabley
sidii ay u soo dhaweeyeen dadka abaartu hadashay ee ka soo gubay gobollada bariga ee u dejiyey beerahoodii ugu fureen arrintaas oo ah arrin aada iyo aada runtii xisbi ahaan aanu ugu hambaliyayno waa dhaqankii dadweynaha gobolka gabiley ee gobta ahaa ee u dhashay badigelinta sooriyada iyo gobol waa arrin run ahaantii aqoonleedii maalin dhoweydo aanu kormeer ku marnay deegaanada gobolka hawd iyo sallaxley ayaa markaan beledweyne joogno dareenka dadkaan aada u yaabnay oo ay jacayl fara badan iyo ka sheekaynaya dadkii soo guuray waxyaalaha ay dee u qabteen gobolkan arrintaas fantaaskeeda aan aada u yar waxay beledweyne taga waxaan arkay carruur yaryar funaado yaryaroo kuwa gacanta lagu talaagashan waxaa ku qoran I love iranka diryaanka waxaa lagu qalasaynayaa xaaji faad baa samaysanaynayo xaajadii anta waxbay xajo maxaad samaysa waxay tiri maasha allah eedo waxaa xoolaha iyaga iyo ariga iyaga iyo waxa iyagii oo dhan meel halkaasoo anumaan aragay gebiga agteeda iyo wajaale ayay degan yihiin baa laylo dabeedna waabaa soo dhaweeyey beerihii baa loo furay xataa carruurta yaran habeenkii intoo yimaada bay cashada u soo saartaa xaajiyadu dabeedna waxay tiri markaa wax kala qaban maayeen xaajadu waxay dumarkii reer cafeedkaaye hore oo aad bay farshaxanka fulaanadaha sida horta hore u taqaamay way iibin jirtay fulaanadaha waxay ku qori jirtay dadkii hore ay loo Somaliland dadka kale markaa u qabtaa garan waaya ku ammaan waxay tiri waxaan ku qoray ay loo filanka deegaanka dadka fulaanadii fulaanadii bilaash baa ku qaybiyey markaasoo maa yuhuudiyada carruurtooda oo xirtahay يعني طريقة صباح حاجة سوقلوا وانتوا يعني تجاكي يا هيا تري حسان تهتسيو واميلا قبلنا وترتب أنا ما تسبيها وأنا يكون قليلنا وأنا يكون هنتبينا وأنا سوق الجريه يا مركز الجريه شارك درس أرتين ريف هذا هي بنارها إلهي نوغديو بدون أن يجبلي واحد سيجارة وما هذا غيا soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha badan leh ee ay halkan ku soo dhaweeyeen ambaasador Sakariya Xasan Wacays waxaan jecelahay inaan dadweynaha bulshada Gabiley cuqaasha salaadiinta madaxda ururada haweenka madaxda ururada dhalinyarada la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha khayraadka dabiiciga xogayaha guud xisbiga Xasan Saciid Yuusuf agaasimaha guud ee madaxtooyada Marwo Khadra Xaaji Ismaaciil Geyd maayarada Solteeko maamulka gobolka wasiirka gobolka Shucayb Maxamed Muuse iyo dhammaan madaxda deegaanada waxaan leeyahay aad iyo aad u soo dhawaada sanadkiisa ilaahay khayr ha inuu gaarsiiyo runtii hadalku goor gaaban hadalkeed gaaban baa layidhi intii la odhanaya waa la yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo anigoo ku hadlaya afkiisii iyo afka qarankaba waxaan leeyahay bulshada gobolka Gabiley waxaad aad ugu mahadsantihiin oon idinkaga mahadnaqaynaa sida qiimaha leh ee aad u soo dhaweyseen dadkiinnii walaalihiin ee abaaruhu ay tabaaleeyeen ilaahayna inoo barya in abaarta inaga qaado oo barwaaqada inoo shubo sanadkan iyo wixii ka dambeeyaba guusha iyo gobonimada gobolka Gabiley waxa ii raaca waxaan ilaahay ka rajaynayaa in uu Sakariya Xasan Wacays uu ku guuleeyo xilka loo magacaabay waa xil culus waa nin la kartideedii iyo aqoontii uu kaga midho dhalin lahaa xilka madaxweynuhu magacaabay madaxweynahana waxaan leeyahay anoo ah afhayeenkiisii inaad walaalkii Sakariya u magacaawdo ambaasadorka Sweden waa guul waana kugu mahadnaqaynaa sidoo kale waxaan halkan salaan qaalay ugu gudbinayaa sanadka cusub
dhammaan golayaasha qaranka marwada koowaad ee madaxweyne ku-xigeenka iyo intii mudan qaranka xiluu haysa waxaan jecelahay inaan hadalka sii wadin sababtoo ah waa waqti gaaban waxaan leeyahay sakariye xasan wacays ilaahay kugu guuleeyo waan ku hambalaynayaa xilka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وسيرك وسادها وشدها أيام السلام يا نافيين كمدحتوينا وما السلام يا حبيها وحسبي وقلبي وبرفنا هذه اللغة يا وحسلام يا برصة كبرك ماير كبرك وحنا هذه السلام يا ماير كماير السودان الآن عبد الرحمن عيبين أيام هذه السلام يا وحسلام يا سلامتها كبرك الجميل oo aynu waddanka dheernahay sanaadiinta iyo cuqaasha ayaynu Soomaaliya dheernahay iyo haweenka isku duuban aad iyo aad u salaamayaa waxaan salaamayaa haweenka kale waxaan salaamayaa martisharafta Mustafa Xuseen Wadaadiyare Cali gudoomiyaha jaamacadda dhammaantiin waxaan ku salaamayaa xildhibaanada golaha deegaanka oo ah xildhibaanadeedii la bedelay horumar weyn xaqiiqiyeed oo ugu hambalyeynayay yihiin xildhibaanada isku duuban oo gobolka Galmudug si fiican ugu fokra horumarkiisa shacbigeena aad u salaamaya waxaan dhammaantiinba haweenka xusbiga ayaa salaamaya gudoomiyaha xusbiga ururka qaranka ee nool ayaa salaamaya waxaan salaamaya xogayaha qaranka haweenka Qodan Axmed Cabdilaahi dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamaya xubnaha loo doortay now ee cusub ayaa aad iyo aad u salaamaya أيها السلام يا جماعة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا اليوم أكن أي منطقة سكونة هو سولوينتا سكري حسن وعيس سولوينتا سكري حسن وعيس وحنا مجمع العلم يا مدحوينها النقارقة أجرتي ميزانك وضلك يدبر كل يهي سكري حسن وعيس وحنا مدحوينه آد دونك هجمع العلم مقعوبة سكري حسن وعيس أظن مقعوبة سكري سكولة استمرنا هاي سكري نكوكوبا مركو ربع ركرو سكري سفير بوها مركو هذا سكري وصولوينتا أنا مو أنا تكيدو رجال أنا مرتقط وصل على السكري مستفيو وحي هاي مركو ربع تصفير هكا كعبي هاي وحي نقول هاي وقبل توقف الكلماتي أي كودين إيو إلا إيو ضربة هايدنا هو الدمر كوليبنا أي قيبتها ورماركا السياسة أي كنتها قيب جيرين مركا واحد رايحة سكريين هوشي أتحكسي أيوبا ما تنا لغو جيدي هاو عصب معها وحنا نقصرنا إنو سكري هوشاسي أيوب قليسا أيوب كهاني ويقفوا هول الأول بحيين ده قليس كمان قليسا وما تروحوا يحويا مدحوينها أيوب شرعيين مركا واحد سكرينا وينو تعيننا إنه في الكلام وحول يريو إنه لا يحرق وحول يريو قبل كانوا بوصل وينا سومالي ما بوصل سومالي ما بوصل وينا وحنقولنا هكذا تجيتها يسولنا قيمها أبكلا يا بحي يوم مرتدا سألوا مرتدا هذا لون هاي مكاسكني توصل نور على هذا وكيل جميل اتحقق الخير الحمد لله بشكل هذا المنطقة هذه تقريبا بوصل وينا ربنا فلنا إلى القبر كنتي سكاني المنطقة هذه بوصل وينا يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. inaan halkan uga mahadnaqo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Silaayo oo ii gartay xilkan ama mas'uuliyadda la igu igmaday inaan qaranka ugu shaqeeyo
ومناسبة يحديد هذه أقوسي صاحبنا وهلا سومالي أدي أتبرق مع هذا يا مدحوينات السومالي انت كبعدي وحانو ما هذا يا قبل كأكل شيء قبلي ماتا عاقلة دي سراتيبي أي أنت وصوبنا تقولي فرح بطنا عقيد تاجنا أدبني كما هذا يا تاجرنا يبولسين فرحاتي تاسري أي في فرصة dalkaaga u shaqeeyay kariyo waxa sidoo kale jecelahay inaan ka salaamo madaxda qaran ee halka la socota ka koob yahay wasiirka wasaaradda Shucayb Fuute maayarada Cabdiraxmaan Cabdilaahi Sawteeko afhayeenka madaxtooyada Xuseen Weyd agaasimaha وسارد مدحتويدا خضرة حاجية ورناهاتي ضرب قبل كان واحد بدن سوقتي رناهاتينا شوف حاليا قلت له بين شو جاي كودا هاي أنا جاي لهاي نقدر هو واحد صدق الوطن وعسيدو كل شيء على هاي حكاية إسبيكا كلية ومسونا نقول إحترامي وحكم اسم حاكي كذلك وجاك كي هاي مدحونات بلد السمانة إلى يقول يا سفر كان كل الجبلي ولا حكم يكسر دو مرة وحوي حاجة ما عندنا يا كذا يعني ما عدا صور عليه المفتي صور عليه وحكوا هذا الشيء على هاي السجرة وجمع هذا أبي أحمد وأهل التريان مدحوناها ولا هاي جزاك الله waxaan jeclahay doonaya inaan ku soo gabagabeeyo maamulka gobolka Gabiley oo hormood ka yahay maayarka gobolka Maxamed Amiin iyo farasaabka gobolka maayar ku-xigeenka xogayaha xildhibaanada gobolka maamulka jaamacadda gudida haweenka now gudoomiyadeeda nala joogto haweenka gobolka dhammaantood dhalinyarta runtii mahadnaqa aad iyo aad u weyn baan soo jeedinayaa kamana turjumi karo dareenkayga runtii taageerada intaa leeg aad ii muujiseen waxaan jeclahay Gabiley waa magaaladii ka nasiib ka nasaar soo mahay waa magaaladii Cabdilaahi Sultaan Macabee taariikh badan bay leedahay inta u dhaafi maayo waxaan kaloo jeclahay oo doonaya anu Gabiley safiirubeeyhi laakiin Gabiley waa magaaladii horumarka Gabiley وأكون سوماليلاند ودنا واللمن مركز سوماليلاند أو من أو إنك أو حسبك من معارض من محافظ لما أنتم أدم مركز قربان شوفوا سوماليلاند به ولا يمين كلية دلكين إلى أشقينا oo aan dalkeena gaarsiina aqoonsi gaar ahaan haddaan nahay qurba joog taasaa naga kooba laakiin mid baan ku darsanayaayo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland bay magacaabay madaxweynuhu xisbigu ka soo jeedaa taasina way jirtaa run ahaantii aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa weliba gaar ahaan waxaan jeclahay inaan mahadnaqaya ku celiyo salaadiinta iyo niyadda gobolka ee halkan maanta igu timi waxaan filayaa dhowr gooraan meesha iyagoo wada jooga lama arag aad iyo aad baan idinka ugu horeeyo Sultaan Ibraahim run ahaantii waxaan jeclahay hawl badan baa taalla dalkeena abaaraha ka jira farxad gaara iyo faanfaan bay ii tahay reer Gabiley iyo gobollada galbeedku inay dadkii abaaruhu ku dhaceen gacmaha
oy beerahoodii u fureen oy soo dhaweeyeen ammaan bay tahay gobolkana ammaan bay tahay إن شاء الله إلهي روبك هينوك ينو إلهي دلكنا نمعها كارسيو إلهي أخوصك هينوك ينو إلهي من هينغنينو والسلامة السلام عليكم والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تدوينا رير كبلي لما أنتم سيدنا قيمة على وسط النووي سفير كي دقالقا دقة عاصمة قبلي أمير عمر عبدي فرس نافك قبلك حسن عبد عبدي أقاسمها كودة وسارة مدحتوية حوالي يرتاي خزاعة إسماعيل يولي بعد أفايك مدحوينها جمهورية الصومال صاحبك حسين آل العقيدين وحوي حقيقة كل حسبك بدني حسن سعيد يوسف la taliyaha madaxweynaha amiin iyo dhammaan dadka qiimaha leh ee xafladan soo dhaweynta ka soo qayb galay madax dhaqameedka salaadiinta iyo cuqaasha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laba qodob baan ku soo xidhayaa midna kaftan yahay midna aan doonayo inaan waxoogaa ka taataabto taariikhda Sakariya Xasan Wacays in badan baad iga maqasheen runtii anigoo ka hadlaya amba ammaanaya mudane Sakariya Xasan Wacays safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Sweden waxaa maanta muuqata in dhammaan shacabweynaha reer Gabriel looga mahad celiyey inuu xushay qofkii ku habboonaa ee ku munaasibka ahaa ee qaaliga ahaa oo uu yidhi Sakariyow waxaan kugu dirayaa safaaradda jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Sweden si aad himiladeenna iyo hadafkeenna iyo yoolkeenna mustaqbal aynu hiigsanayno inaad halkaa gaadhsiiso qodobka koowaad waxa weeye waxaan idin xusuusinayaa waqtiyada ka mid ah ayaanu tagnay dalka Kenya annagoo doonayna inaanu safar Yurubta u baxno safar shaqana uu ahaa oo shaqaan u soconay dhinaca kale wuxuu ka ahaa safar taatiga xeelo dagaalo waxa weeye safarra uu isugu jiray hawlo badan oo marba baadnay muushidada laga baxsadaa safarrada وعلي ونبيل يوركا معايا من الحوية كامبين يصل مركة كم بحثني 318 نيروبي توي وحنا في إن في سايرو وإنه سورة قلوي دبا نوصل نقول سكريا رجيم أغلي ساعد وحلا هذا هو ساعد وحلا أيو بي سي ذاك يسورة نوصل ثاني قال السبب أول نوعية السفارة اللي في سياج صدق وحشو على الكويتي وكان سوريدا يا قوت هاي سكريا ولا يهتم تسولن بلا نوصل دويني فقالتي وحليه هاي سكريا وحفظ بينه قبل دونا سومالا وحفظ بطاري دونا وحن إلا ويوم سكارة وسلام يا ماير كماير هذا الشوريد سومالا سعيد في عبد الرحمن محمود عيدين صوتيلكم أنا سولو وحكروا المان تالك نديك السلام يا معلق يجي سياسته إسمه سكريا سليمان محمد شيخ سليمان مدحي أهلا يا زوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا وإنه سوحرية هاي وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله